kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo joogtaan halkani waa Damal Media kuna soo dhawaada barnaamijkeeni Warogaal barnaamijkeenana qodobadaad ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha Somaliland oo fariin ka soo diray dalka Switzerland ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo howlgal ka furiyeen gobolka Salal ku soo qabtay kooxaha hubeysan oo halkaasi dil ka geystay kalfadhigii koob iyo kontonaad ee golaha wasiirada Somaliland ayaa lagaga hadlay arrimo muhiim ah waxaana kalfadhigaasi shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Cali Axmed qodobada qodobo kale ayaa saaxiibayaal ku daawan doontaan xilitabinteena wareed iminkii aatan u diyaar garooba barnaamijkeena fidsan saddexdii cisho u dambeysay waxa lagu muransanaa halka uu ku sugan yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaana la xaqiijiyay in maalintii shalay ka dhoofay gegida diyaaradaha ee magaalada Hargeysa isagoo loogeyn halka uu ku sugan yahay balse sawirro uu maanta baahiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa cadeynaya halka uu ku sugan yahay iyadoo ay sawiradaasi muujinayaan inuu ku sugan yahay dalka Switzerland oo ka socdo shirka caalamiga ee dhaqaalaha adduunka halkaasi ay ku sugan yihiin madax badan oo dunida ah uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Faransiiska Macron iyo madax kale oo caalami ah madaxweynaha ayaa fariintan uu soo diray ee shacbiga uu la wadaagay waxa uu ku sheegay shacbiga Jamhuuriyadda Somaliland meel kastoo joogaan waxaan u soo dirayaa salaan iyo bogaadin anigoo u rajeynaya khayr iyo nabad iyo barwaaqo qoraalkan ayaa muujinaya in aanu si cad madaxweynuhu u cadeyn halka uu ku sugan yahay iyo sababta uu halkaasi u tagay balse warar hoose oo Damal Media helaysa ayaa xaqiijinaya inuu shirkaasi doonayo inuu wadamo badan kala hadlo aqoonsi inay siiyaan Jamhuuriyadda Somaliland ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa howlgal ay furiyeen waxay maanta sheegeen inay ku soo qabteen dablay hubeysan kuwaas oo dil ka geystay deegaanka Indhabiraale ee degmada Saylac warsaxaafadeed ay soo saareen ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa uu dhignaa sidan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxay maanta furiyeen howlgal amni oo qorshaysan kaasi oo lagu baadi goobayay koox hubeysan oo faldambiyeed ku dilay laba qof oo shacab howlgalkan oo ka dhacay deegaanka Indhabiraale ee degmada Saylac waxa uu muddadii u socday kooxda budhcadka ee ay iska caabin hubeysan kala hor yimaadeen ciidanka qaranka Somaliland oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ee sugidda amniga waxay ku guuleysteen inay soo qabtaan xubno ka mid ah budhcadii falkaasi geysatay iyagoo sidoo kalena gacanta ku soo dhigay hubkii ay wateen howlgalkan waxa uu sababay in laba ka mid ah budhcadii ay ku dhimatay iska horimaadkaasi halka afar kale oo ku dhaawacmeen ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxay mar kale dignin adag u diray cid kasta ama koox kasta oo isku dayda inay khalkhal geliso amniga iyo xasiloonida shacabka gaar ahaan gobolada galbeedka ee dalka in laga qaadi doono tallaabo sharci ah oo waafaqsan xeerka iyo dastuurka dalka ciidanka qaranku waxay shacabka u xaqiijinayaan inay sii wadi doonaan howlgallada lagu xaqiijinayo nabadda amniga iyo ilaalinta naf iyo maalba ayaa lagu soo koobay warsaxaafadeedkaasi uu soo saaray ciidanka qaranka Somaliland uu kaga hadlayay howlgalkaasi ay ka fuliyeen gobolka Salal kalfadhigii koob iyo kontonaad ee shirka golaha wasiirada Somaliland ayaa shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland ahna kusimaha madaxweynaha Maxamed Cali Axmed ayaa maanta ka qabsamay qasriga madaxtooyada kalfadhigan koob iyo kontonaad ee shirka golaha wasiirada ayaa qodobada maanta lagaga hadlay waxa kamid ah warbixinta xaaladda abaaraha dalka warbixinta xaaladda amniga dalka warbixinta dakhliga iyo dhaqaalaha warbixinta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland iyo sidoo kale waxyaabaha laga hadlay waxa kamid ah qabyo qoraalka xeerka maxsharka xoolaha qabyo qoraalka xeerka siyaasadda qaranka calafka xoolaha iyo welibana xeerarka kale xeerka abuurka dalagyada beeraha iyo xeerka isticmaalka sunta beeraha qodobkaasi ayaa saaxiibayaal ugu dambeysay warkii xilligan ee Damal Media wixii warar ka soo kordhay socdaalka madaxweynaha waxaad ku daawan doontaan wararkayga warkan xiga